wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa shaacisay in magaalada Muqdisho laga helay qofkii labaad ee qaba cudurka COVID-19 ee ku baahay caalamka. Shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Muqdisho ayay maanta ku shaacisay in qof Soomaali ah oo ka yimid dalka dibadiisa kadib baaritaan lagu sameeyay laga helay COVID-19. waxa ay sheegtay in qofkaas uusan jirkiisa ka muuqan wax calaamad ah. hayeeshe wasaaradda caafimaadka ayaa muwaadinka Soomaaliyeed ay gacanta ku hayn doontaa ilaa iyo intuu ka caafimaadayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saakay waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo bulshaweynta la wadaago in xaalad kale oo coronavirus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo wadanka yimid. muwaadinkaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid in ay yahay positive. muwaadinkaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka aysan ka muuqanin. waa alxamdulillah ilaahay waxaan ka rajeynaa inuusan ku soo bixin. marka muwaadinka dibadda ka yimid waa dadka la haayo oo karantiilka ku jira. waxaan rajeynaynaa inuusan cudurka ku soo bixin. waxaa lahayn doonaa intii analysis kale oo 2 iyo 3 laga xaqiijinayo. waa caafimaad qaba wax calaamado ah kama muuqdaan. xaalado badan oo saas ah jira oo san ka muuqanin qofka calaamadihii cudurka. waxaan ilaahay uga baryaynaa inuusan cudurka ku soo bixinin. waxaan rabaa bulshada inaan uga faa'iideysto maanta wacyigelin ku saabsan cudurka sida looga hortago loo xakameeyo. saa la socotaan wadankeena xaaladda caafimaad waa iska liidata. waa wadan soo koraya dhibaato badan ay haysato. waxyaalaha aan ku dadaali karno guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxa waa inaan cudurkaas ka hortagno. sidaad la socotaan diyaaradihii waa la celiyay. inta dhimanna waa lagu daba jiraa in la celiyo oo safaradii iyo socodkii waa la hakiyay. waxaa kaloo la hakiyay goobihii shaqada oo 2 satimaan ayaa la fasaxay. waxaa kaloo la hakiyay oo la fasaxay ardadii dugsiyada dhiganaysa ee jaamacadaha. muwaadin kastoo ka yimaada meelaha qatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakameynayaa, waa la karantiilayaa ilaa 14 beri ayaa la haynayaa. waa wax loo baahan yahay in la sameeyo sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo haddii cudurka uu qabana aana lagu deynin bulshada oo intii ka badnay uusan cudurka qaadsiinin. waa taxadar muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noo dulqaataan ay nala sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin. waxaan rabaa inaan u sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado ha ahaadaan iskuulaad ha ahaadaan jaamacado ha ahaadaan xaflado totally in la joojiyo aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dad ka badan 15 qofood. in la kala dheeraado oo ma aragtay aan gacmaha la iska salaamin. in aanan lees hagareynin oo aan lees haanyoonin cudurka waxyaalaha uu ku Nasteex Farxaan Shidane CWTV magaalada Caabudwaaq.